minnesota xaafadda tobnaad baa waxaa ka soo sharaxay hawiye waxay rabaan inay golaha deegaanka ku daraan war hawiye nama bartaan miya war hawiye oo ku akhriseegnid waxaa arkay ayagoo mudaharaada iyo doonayna daarood wiilkaan noogu dara 10 xildhibaan baa leedihiin halka xabaan wadana noogu dara hawiye way dhageysta meesha minnesota la yiraahdo waa garow tuuwe maaha muqdisho walaalayaalow ha ku kadsoobinina khiyaalna iska dhicnina qof kasta oo qabiil social media ka soo hadla haday noqoto TikTok haday noqoto Facebook waynu ka block gareynayna awood baan leenahay si aan u helno jiil nadiifa ma iska qabanaa nimankan qabiilka nagu dhex wada warba ka xirnaa Facebookyada iyo meelaha ka hadlayaan oo wallahi billahi talaaya inaan qabiil laga dhihin oo laga cabsado oo laga xishoodo halkaana sheekadu ku burbusho waxaan rabaa maatina tafaafulo muuqaalkan soo daawateen muddo 2 maalin ah ayaa dhagaha ka furaysanay arrinkan inaan ka hadlo waa fursad weysay kan qabiilka u hadla maantay iyo ka Soomaalida u hadla dadku waxay tixgeliyaan oo sharfaan oo karaameeyaan kan qabiilka u hadla hadii uu rabo kan qabiilkaada maalin kasta ay ha noqdo Soomaalidu wanaagii waa nacaan maanta qofka wanaaga wada iyo qofka xumaanta wada haday istaagaan ka xumaanta wada la qaadanaya maanta markaan ummadda Soomaaliyeed geest walbaan ka soo galay hal sano ayaan social media wax ugu sheegaya Soomaalinimada wali taagana Soomaalinimada aan taaganahay ayay igu tixgelinayihiin adiga idaawanaya boqolaalka kun qof ay daawan doonta kulligood Soomaalinimadaasi ka soo horjeedaan toobiga inaan ka baxdoori ma war qabiil qofka qabiil ka soo qaxay ee Soomaaliya qabiil ka qaxiyay ee Mareykan geeyay soo lugaynayay ee qaarkood xiriir qooti laga soo qaaday anigu waa reebel dhima geedka qabiil la yiraahdo sheegi ma hawiye iyo daaroodkan ummadda Ilaahay ku salladayba xiriir qooti laga soo qaado Mareykan waxay ku tageen fiisa iyo hooyada yaa la dilay ayeedii baa la dilay qabiil hebel baasaani galay ku tageen meesha waxaan rabaa marka qofka sida noocaas Mareykan ku galay inuu maanta qabiil ahaan u shaqeeyo asagoo interviewgiisu yahay qabiil hebel baa soo bixiyay labada dhanba warbaa ahaado inuu wadana wali qabiil sii sheegayo oo san ka tanaasulin oo sanagan qabiil wuxuu noo dhiba maahan inuu san waxba na tarayn aad baan u qaraysana meesha waxa ka dhacday wiil Soomaaliyeed iyo gabar jaaniba ayaa tartan iskugu yimid waa laga hadlay daad u xiisan kuma haayo inaad ii sheego wiilka magaciisa xitaa waad haydin gabadha magaceeda waad haydin qabyaalad bad ku dhagaysateen in kar la ay ku ride bal dhagayso wiilka iyo gabadhii markay tartamayeen sheekadii qabiil bay isku bedeshay dad baa qabiilahan ugu hiiliyay gabadhii ayagoo wiilka diidan dad baa waxa la sheegay wiilka inay ku durayaan qabiil oo ay gabadha qabiil ugu hiiliyeen anigu waa beesha daarood oo dhana xun dhihi ma qabiil kasta waxa ku jira qof wanaagsan qof xun tuug dhalay baa ku jira masaakiin baa ku jira shiiq baa ku jira qaacin baa ku jira balayo dhana qabiilka ku jirta kan xunka marka waxa uu sameeyo qabiilka weyn looma hadlay karo anigu marka toobiga dadku say uga hadleen si ka duwan uga hadlaan rabaa meeshaas qabiil ahaan baa wiilkii loo cusuriyay gabadhii ajaanibkeedna loogu hiliyay sheekadaas anigu halka dhaafin ma rag baa dhaafin maayo waxaan rabaa inaan geedka qabiil liira maanta wuxuu yahay idin sawiro baraha bulshada ragga waafka dheer ee ka qayliya ee maalin kasta waxaad arkaysaa nin 60 sano jira ee wax meeg liira qaadanaya inta baraha bulshada tago ay tamaya qabiil hebel samba waxba soo waxaan tarbiiqay ilmaha yar ka maantan raydkeeda dhagaysanaya 30 jirkiiba dhagaysanaya 5 jirkiiba dhagaysanaya maxay noqon karaan marka ilmuhu maxay noqon karaan jiilka naga dambeeyo soo koraya marka social media qabiilkii iyo qashinkii iyo qurankii la taaganay ilmahan koraya maxay noqon karaan wiil magaalo ku dhashay oo aan qabiilkiisa aqoon oo hooyadii iyo aabihii barin ayaad adigu maalin kasta u meerisaa sham ayuuba taay maalin walba u yeerisaa ilmaha yar ka qabiil baraha bulshada la taagan tahay
ملايين قف با كداوانيسا وشم أيو أيها لفتركود كوا كداوانيا أيها وحي كوانا على كل عضي والله وبالله وطالله كوا داوانيا كسبوت قرينيا قبيلك كاو قبيلك شكيني وحمام الدامان وانو باه بقولال كان كون ايقف مقال كيغا داوان دونتا inay ku jiraan kuwa wadaniyaala kuwa sidaan u gumanaya ila gumanaya kuwa dhibka ila dareemaya kuwa qaladka aan u jeedo ila jeeda war waxaan anigu go'aansaday dadka baraha bulshada qabiilka ka sheekeeya inay ka hadlaan ka tanaasulaan waa haddii adigu raacdaan 3,000 oo wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed ma heli karnaa naqalatullah alaygo dhan waa ka xiraynaa qadka waxaan ka soo bilaabaynaa daahir cala suu kabtan ayuub baan ku xujinaynaa shaydaan oo dhan aan ku xujinaynaa qof kasta oo qabiil social media ka soo hadla hadday noqoto TikTok hadday noqoto Facebook waynu ka block garaynaynaa awood baanu leenahay inta wanaagsan aan la hadlayaa ayagu dadka Soomaaliyeed ma xuma laakiin laab la kacbay u daawanayaan si aan uga gudubno si ilmo nadiif noogu koraan si aan u helno jiil nadiifa ma iska qabanaa nimankan qabiilka nagu dhex wada war ma qabanaa war ma iska report garaynaa war ma ka xirnaa facebookyada iyo meelaha ka hadlayaan war haddaad igu raacsan tahay halkaa hoose yahaa ka soo qor haddaad igu raacsan tahay inaynu ka progarayno Facebook inaan shaabad ku wada dhajino inaan ceeb iyaga dhan dusha u saarno ay noqdaan kuwii ceeboobay wallaahi oo billaahi oo tallaahi kun qof oo Soomaaliyeed oo wadanaya hadii la helo waxaas waa laga xiri karaa haddii aan maanta laga hortagin haddaan laga hortagin haddaa qabiil gun iyo caar bixiye qabiilku waxun maahan anigu nin qabiil diidan maahi ilaahay baa qabiil iga dhaliyay qabiil baanahay qabiilkayga laabtan ku haystaa laakiin dad Soomaaliyeed in qabiil lagu dhibaateeyan ka soo horjeeda qabiil kasto Soomaaliyeed in wax laga sheego la caayo in la baabuuniyaba qabiil oo dhan la wado social media la keeno inuu TikTok yaalo inuu Facebook yaalo wallahi oo billahi oo tallaahi muuqaalkan aan soo qaatay konton jeer buu uga soo horbax konton jeer saaba loo wada share garaynaya intifaac maxaa danahu ku jira dib u dhac maahan danahu ku jira war 30 iyo dhowr sanaan Soomaaliyeed aan qabiil dabada ku dhaganayn meel waana gaarsiin waayay dawlad la'aan buu na dhigay dal la'aan buu na dhigay qax buu nagu riday hoog buu nagu riday maanta hadda miyaan hadana soo bilownaa sheekadan Soomaalida social media maanta siday u isticmaalayso waa waagi arli jaahiliyo kala weeyaan wariya kulli dhamaantiis ma igu raacsantiin walaalayga Soomaaliyeed wadaniyaalka baan la hadlayaa intaas oo kale oo dhiig wadaniyo qof ku jiraan uu dooni maayo ma igu raacsan tahay inaan dhowr qof helno kun qof kaliya inaan helno nadiifa oo isku xiran oo magac la baxda oo ay ka cabsadaan kuwa qaylinaya inay qabiil damba soo duubin inaan anshaxumo wax damba qof social media soo dhigin la dagaalamayna qabiilka kaliya kuwa anshaxumo baa la dagaalamayna kuwa gabdhaha ayaan la dagaalamayna gabdhaha social media inta soo gala qashinka iyo baktiga iyo qurunka ka sheekaynaya la dagaalamayna dadku hadday isku tagaan waxbay samaystaan ayaan la Xuseen buu ahaa ninkii gabadha wax ka soo duubay qabiil ahaan baa inta qol ugu kacday Facebook ka xireen haddii la Soomaali ninkaas uu wax ka sheegay cid markaa xir lahayn bal inta kaliya u fiirso 500 qof oo isku xiran hadii la helo kun waaba badan tahay wallahi billahi tallahi meesha way xoreysan karaan ana idin jooga ana wuxuu dhan idin faansan ana ka dhaadhicinaysan u ribad garaynaysaan war ma igu raacdeen horta qofkii igu raacsan linkiska halka ku qoran waa Telegramkayga group way hadda koor baan sameeyay maraan isku dayay inaan sameeyo dhalinyaro wadaniyaala dhowr boqol qof buu maraya inta ogol halka lagu soo qoro haddii taasoo karo qabiila kugu jiro meesha soo follow garayni
intaasoo kale hadday kugu jirtaa soo falow garaynin sababtaa kuu sheegaya mid qabiilkaada ah oo qaaqlaa beriha la ribooda la dhihi doona waadna diidi doontaa haddaadan dan soomaaliyeed ka shaqaynayn haddaad halkaa isku soo gelin halkaa waxaa lagu xoray doonaa gabdhaha soomaaliyeed sawirada laga soo dhigo kuwa qabiilka caaya waa la xoray doonaa waxaan idin tusayaa oo wallaahi bilaahi tallaahi inaan naac qabiil laga dhihin oo laga cabsado oo laga xishoodo halkaana sheekadu ku burbusho dadkaanu bariis bay u baahan yihiin qalqalinay naclada Allah ku riday markii meeshaas ka xiranto ayagoo af macaanayaal ay ku imaanayaan ayagoo wadaniyada ka shaqeynaya ku imaanayaan la bariiskiya gala moogta dhankan qabiilku bariiska galay muurana wadaniyada dalka lagu dhiso ma ku kalifnaa ayagoo inay soo amaanaan dawladaha jira ma ku kalifnaa inay dhaliilaan kuwa jira haddaad igu raacsan tahay halkaa hoose walaalkeeyo halkaa hoose aan kuu soo dhigayaa linkiska soo raac